Mahdi Cusmaan Axmed waxa uu ka mid yahay barayaasha ama macallimiinta ciyaaraha tennis-ka dheer, sidoo kale waxa uu qayb weyn ka qaatay soo saarista ciyaartoy kala duwan kuwaas oo intooda badan uu soo saaray ay qayb ka yihiin ciyaartoy ciyaarta kubadda kolayga iyo sidoo kale ciyaartoy ciyaarta ciyaaraha tennis-ka. Waxaan eegi doonaa Mahdi halka uu ku dhashay iyo waayihiisa ciyaareed. Waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1985. Waxbarashadiisii qaybihiisa kala duwan waxa uu ku soo qaatay isla magaalada Muqdisho heerarka waxbarashada. Ciyaaryahankan waxa uu bilaabay ciyaaraha inuu ciyaaro sanadkii markuu ahaa 1998. Waxa uu matalay qaranka Soomaaliya 5 mar, waxa uuna tagay wadamada markaasi uu ciyaaraha kala duwan ee tennis-ka ku soo ciyaaray: Rwanda, Suudaan, Kenya, Kuwait, Djibouti. Haddana waxa uu markaasi yahay macallin soo saaray ciyaartoy kala duwan, sidoo kale waxa uu ku guuleystay horyaalka tennis-ka dheer muddo dheer ayuuna ahaa hogaamiyaha ciyaaraha tennis-ka dheer. Sidoo kale Mahdi ayaa soo saaray jiilal kala duwan oo markaasi ciyaaraha kala duwan ee tennis-ka iyo sidoo kale basketball-ka. Waxa uuna si weyn ugu soo saaray degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Sidoo kale Mahdi ayaa waxa uu mahadcelinayaa macallimiintii tennis-ka dheer ee soo saaray, isagoona qayb weyn ka qaatay Macallin Cabdi iyo sidoo kale Macallin Abuukar oo waqti badan ku bixiyay qaab ciyaareedka ciyaaryahankan in uu markaasi ka muuqdo matalo xulka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka tennis-ka dheer oo kaga mahadceliyay waqtiga iyo sidoo kale juhdiga ay geliyeen. Waxa uuna hadda kaga faa'iideystay inuu soo saaro ciyaartoy kala duwan oo markaasi mustaqbal iyo han sare ka leh ciyaaraha kubadda kolayga. Waxa uu sidoo kale soo saaray ciyaartoy matalay qaybaha kala duwan ee kooxaha tennis-ka dheer iyo sidoo kale ciyaartoy matasho xulka qaranka Soomaaliya ee tennis-ka dheer. Waxa uu hadda ku howlan yahay sidii uu horumar ballaaran u gaari lahaa qaybaha kala duwan ee isboortiga. Sanadkan waxa uu ku howlan yahay in uu soo saaro jiil cusub oo markaasi noqon doona sanadkan cusub in uu markaasi u kordhiyo ciyaartoy cusub uu ku soo kordhiyo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ay markaasi ciyaaraan tartamada waaweyn ee ka soo muuqan doonaan jiilka cusub ee hadda la sugayo inuu soo saaro. Sidoo kale waxa uu qayb weyn ka qaatay horumarinta ciyaaraha kubadda kolayga iyo tennis-ka. Wuxuu waqti badan ku bixiyay ciyaarista tennis-ka dheer iyo sidoo kale waxa uu soo saaray ciyaartoy markaasi hami iyo sidoo kale karti iyo dadaal badan ay ku muujiyeen tartamada ay markaasi ka qayb galeen, iyagoona mahad weyn looga hayo Macallin Mahdi oo markaasi soo saaray ciyaartoydani.